عليكم ورحمة الله وبركاته وبدا الصوماليات راس عصير إلى راس كبوني وحان هالكان وقدر إياه تهنيد إيوه همبليو كساليسان من نمضى صوماليا كود اللوليو وأنو همبليين إنه مدى الصوماليات عرن كبروقة waxaan joogaa magaalada Omaha gobolka Nebraska waddanka United States maanta waxaan la dabaaldegayaa dhalashada Soomaaliyeed waa hambaliyadii kooda Luulyo waa maalintii Soomaalinimada ay curatay waxa qaban qaabinaya abaabulka iyo farxadda iyo hambaliyada iyo xafladda soo abaabulay Somali Heritage Society of Nebraska halka waxaa jooga sportskii odayaashii dhalinyaradii iyo ka soo qaybgalayaashii xafladda midaan la koobi karin midaan la soo maanta la qiyaasi karin xamaasadii farxad weyn baa jirta Soomaali hore u soco Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh dhamaan jaaliyadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan maanta waa maalin farxad ah waa sanad guuradii lixdamaad kooda Luulyo aan xornimada qaadanay aad iyo aad ayaan u faraxsanahay waxaan meeshaan ugu mahadcelinayaa tartan ciyaareedkan ay soo abaabushay Somali American Heritage gobolka Nebraska gaar ahaan Omaha Nebraska oo taasoo ay ku qabteen garoonka Bielo Omaha waxaan isaga hor imaadeen odayaashii cuslaaday oo aniga aan ka mid ahay iyo dhalinyarada yaryarka koobkina maanta waxay guusha ku raacday tiimkii aniga aan ka mid ahaa odayaasha ayadoona ciyaartaas ay ku dhamaatay 3-2 waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aan leeyahay hambalyo Soomaali meel kasta ay joogto waxaana mahadcelin buux iyo mid gaar aan siinayaa Somali American Heritage Omaha Nebraska guul Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh koobkan maanta waxaa loogu talagalay in loo dhigo sanad guurada lixdanaad independence of Somalia waxaana ku ciyaaraya odayaalka magaalada Omaha iyo dhalinyarada waxaana guushii sidaas ku raacday odayaalka waxaana guddoonsiinayna koobka hadda kabtanka kooxda Sargobe Arada keliga